dadkii dagaalka ku faa'iidayay waxay doonayaan inay dagaalku uu sii socdo deetana ereyaal loo soo saari doonaa ama xabad quutayaal ama dagaal quutayaal ha la yidhaahda ama nabadiid ciidankii hadda ka hor tigreega ka baxay iyo macahuubkiisii sidoodiiba ugu soo noqonayaan darajadoodina duqaynta xagga cirku waxaan filayaa inay xagga eritrea ka socoto eritreana maadaama ayna heshiiska qayb ka ahayn laguna macsuumin ayna ku faraxsanayn waxa laga yaabaa inay ukaas heshiiskii ay u carqaladaynayso kulan waxaana wanaagsan idilhaantiin badawadayaal kusoo dhawaada waraysi khadka taleefankan kula yeelanay siraajo aadan oo ka faallooda arrimaha siyaasadda gaar ahaan Itoobiya waxna aan ka weydiinay duqeymo la sheegay in ciidamada cirka dalka Eritrea ay la eegteen goobo kamid ah gobolka Tigreega gaar ahaan magaalada Maqale iyo khasaare halkaasi ka dhashay kulan ka dhacay magaalada Addis Ababa caasimada dalka Itoobiya ayna ka qayb galeen ra'iisul wasaaraha Itoobiya madaxweynayaasha deegaanada golaha wasiirada maayirada labada magaalo ee Addis Ababa iyo Dirdhawa iyo sidoo kale taliska guud ee ciidamada militariga dalka Itoobiya iyo wafdigii Itoobiya ku matalahayay shirki ka dhacay dalka Koonfur Afrika iyo heshiiskii TPLF la soo galay maxaabiis la sheegay in laga sii day doono xabsiyada iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada TPLF oo ku biiri doono ciidamadooda wada hadal dhex maray Birhanu Jula taliyaha guud ee ciidamada militariga dalka Itoobiya iyo taliyaha guud ee ciidamada TDF ta loo yaqaano ama xoreynta Tigreega General Sadiqan iyo sidoo kale waxyaabaha caqabadaha ku noqon karo heshiiska dhex maray dawladda federaalka Itoobiya iyo TPLF iyo qaabka ay u fuli lahaayeen siraajo soo dhawow sida aynu xog ku helayno ciidamada dalka Eritrea cirka waxay duqeymo la eegteen qaybo kamid ah gobolka Tigreega waxa la sheegay inuu khasaare ka dhashay sidoo kale shir ayaa ka socday magaalada Addis Ababa looga arinsanayo xaaladda wada hadalka iyo wixii laga yeeli lahaa lagana dhageystay warbixin gudidii Itoobiya ee ka imaatay dhinacaas iyo dalka Koonfur Afrika heshiiska soo saxiixay sidoo kale waxa la sheegayaa in madaxweynaha dalka Eritrea uu doonayo in uu carqaladeeyo heshiiskan TPLF iyo dawladda federaalka Itoobiya ay wada gaadheen warar kale oo helaynana waxay sheegayaan in khadka taleefanka ay ku xidhiidheen taliyaha guud ee ciidamada militariga dalka Itoobiya Birhanu Jula iyo sidoo kale taliyaha guud ee ciidamada TPLF General Sadiqan bal arrimahaas oo dhan adigoo dulmar noogu sameeynayo maxaa ugu dambeeyay xaaladda guud ee dalka Itoobiya bismillaahir rahmaanir rahiim waa su'aalo aad u fiican sida aad sheegayso maanta waxa kulmay oo Addis Ababa kulan ku yeeshay madaxweynayaasha deegaanada kala duwan labada maamul magaalo kabineega ama golaha wasiirada iyo labada gole aqalka golaha federationka iyo golaha wakiilada shacabka waxa markaa halka report ka soo jeediyay waxyaabihii lagu heshiiyay Ridwaan Xuseen oo faahfaahin ka bixiyay marka wax badan oo ku soo kordhiyay ma jirin guud ahaan wuxuu ka hadlayay uun heshiiskii ereyo cusub oo uu ku soo kordhiyo isla heshiiska uun kamid ah way jiraan marka adu guud ahaan kulankan ujeedadiisu waxay ahayd in ay ku tusinaysaa in Itoobiya ay ka go'an tahay meel ay hadda ay bal marka dambe caqabad timaadaba laakiin bilowga hore inay ka go'an tahay marka waxa loo sharaxayaa dadkii executive-ka ahaa ee go'aamadu ay ka go'ayeen markaad eegto waa madaxweynayaasha kaliilada waa golihii wasiirada iyo dhankii sharci dejinta baarlamaankii baa loo yeedhay mataqaanaa labadii speaker baa loo yeedhay labadii maamul magaalo Ridwaan marka wuxuu sharaxay heshiiskii Itoobiya ay soo qaadatay ee TPLF dhex maray noocu ahaa wax badan buu ka hadlay qodobada muhiimka ka hadlay waxa kamid ahaa in labada dhinacba ay tixgeliyaan heshiiska laga ilaaliyo wixii naxli ku keeni kara wax cusub wuxuu ku soo daray waxyaabaha xagga TPLF ay codsadeen in maxaabiistii loo sii daayo siyaasadda ama dagaalka u xidhnaa waxa kale oo xusuu carabka ku dhuftay oo kamid ah heshiiska in saraakiishii ciidanka TPLF ta hadda ka hor ahayd iyadana in lagu soo celinayo ciidanimadoodii nidaamka hubka dhigida waxyaabo noocaas uu ka hadlay guud ahaan nuxurku wuxuu ahaa markaa in loo sharaxo sida wax soo dhaceen dadka maaragtay decision makerska ee kilada kala duwan jooga maadaama arrintu ay qusayso ka xisbi ahaan dhinacan kalena waxay u muuqataa golaha baarlamaankana in la horgeyn doono arrintan heshiiska bacdama TPLF la yidhi waa argagixiso waxay u muuqataa in golaha baarlamaanka la horgeyn doono oo argagixisada laga saari doono marka guud ahaan waa bilow arrintani fiican baa la odhan karaa oo ku tusinaysa sida Itoobiya uga go'an tahay inay heshiiskii meel mariso taas marka waa sida waxa kale oo iyaduna weydiisay waxa weeyaan waxa jira maanta iyo shalayba
meelo gobolka ka mid ah Tigreega oo duqaymo ay ka dhaceen xagga cirka ah. marka taas waxay ila tahay dagaalkan waxaa qayb ka ah dowladda Eritrea. dowladda Eritreana waxay u muuqataa dee heshiiskan qayb kama ahayn oo officially de waxa labada arrimood ay dhex marayeen dagaalku ee la og yahay ee si official isugu iman kara waa Ethiopia iyo TPLF weeyaan. marka sabab miiska wada hadallada ay u iman karaan iyadu ma jiro maadaama waxoodu uu qarsoodi ahaa. hadda marka waxaad moodaa in xumeena iska noqonayso kolley duqaynta xagga cirku waxaan filayaa inay xagga Eritrea ka socoto. Eritreana maadaama inay heshiiska qayb ka ahayn laguna macsuumin ayna ku faraxsanayn waxa laga yaabaa inay ukaas heshiiskii ay u carqaladaynayso. marka waxaan filayaa taasi in de caalamkuna uu dhinac ka wada maro Ethiopiana ay isku dhacaan bay keeni doontaa. isku dhacaasina wuxuu keeni doonaa un de waxaan filayaa heshiiskii haddii Ethiopia ay daacad ka noqoto heshiiskii ma burburinaya waxay noqonaysaa un iyadoo la wada jiro TPLF iyo wax walba in laga hortago markaa haddii Eritrea ay joojin weydo dagaalka. kolley ciidamo Ethiopian oo markii hore dhinaca joogay oo xagga jireen waa la sheegay laakiin anigu taa ma hubo. su-aasha kale ee ah waxa la warar la isla dhexmariyay sheegayaan in Birhanu Jula oo ah taliyaha ciidanka Ethiopia iyo General Sarqan ay kulmayaan. warar social media la dhex wada weeyaan laakiin ma hubno oo macquula. laakiin kulankoodu markaa wuxuu daaran yahay sidaan filayo waa taliyihii ciidanka Ethiopia ninkaasina waa taliyihii ciidanka Tigreega. hadda markii dagaalku uu qarxay coalition bay samaysteen magac cusub bay samaysteen. TPLF waa urur siyaasi ah oo ururkii wadanka soo xukumayay weeyaan. marka ciidamadii qaranka ka tagay iyo liu booliskii wixii dhan isu wada tagay waxay samaysteen wax la yiraahdo TDF Tigray Defensive Force. marka waxay ila tahay waxa hubka laga dhigayo ama hubka wareejinaya oo laga wada hadlayo waxa meesha ka bixi doona wixii sharciguna ogolayn bacdama la yiri wax walba sharciga lagu dabaqo sharcigu ma ogola markaa ciidan kan qaranka ka baxsan. marka waxay noqonaysaa cidda magacaas uu ka baxaya meesha waxa ka wada hadlaya markaa sida uu Ridwaana sheegay ciidankii hadda ka hor Tigreega ka baxay iyo macahubkiisii soodiiba ugu soo noqonaya darajadoodina way labisanayaan bay ka dhigan tahay oo sidii ahayd bay u qaadanayaan darajadoodii. marka taa kulanku waxay la tahay in magacaas ka bixi doona ka bacdina TPLF baa soo hari doonta ururkii siyaasiga ahaa. arrintan kale caqabad maxaa ku iman kara? horta de caqabado way iska jiri karaan oo imika labada dhinacba xitaa waxa jiri kara dad dagaalku inuu sii socdo doonaya ama qolo waliba inay guul mataqaanaa wadanka gudihiisa guul lagama sheegan karo. marka coalitionkii dagaalku galay waxba iska dooni karaan qaar ka mid ah. sidoo kale dadka Tigreega laftoodu waxba iska dooni karaan. dadka siyaasiyiinta oo wax hogaaminaya iyo askariga qoriga wata isku aragti ma noqon karaan. marka Tigreegana waa laga yaabaa dad wax caqabadeeya inay ka yimaadaan xaggan Ethiopia waa laga yaabaa dad wax caqabadeeya gaar ahaan dhinaca deegaankan Walqayd iyo Raaya oo qowmiyaddan Axmaaradu ay sheeganayso oo maleeshiyaadkeedii ay joogaan waa laga yaabaa inay caqabado noocaasi ka yimaadaan. caqabadu markaa waxay noqonayaan kuwo wadanka dhexdiisa ah iyo kuwo ka baxsan. kuwa wadanka dhexdiisa ah dawladda laga rabaa inay meel mariso oo ay dadka u jawaabto oo ay meel marin karto dastuurka la meel mariyo waxay ka dhigan tahay xuduudii Tigreena waa la yaqaanaa. wax kasta oo dagaalka ka horeeyay sidii buu ahaanayaa. wax kasta oo dagaalka kadib dib dhacayna waa laga kaaftoomaya waayo heshiiska waxa kamid ah in wixii hore u dhaco dhin la iloobo ee dagaalku dhibaatooyinku keenay. marka waxay la tahay waxa ka baxsanaan kara wadanka gudihiisa waa Eritreana markaa de Ethiopia mar haday tooshka ku qabato wadankan iyada mas'uulka ah waa wadan madax banaan waxay noqonaysaa markaas caqabadaas mid caalamka kale loo bandhigo oo dawladda Ethiopia inay sheegto. marka waynu arki doonaa laakiin caqabaduhu kolley kuwa wadanka gudihiisa waa wax la xallin karo. kolley waxa bilbilaabmi doona siyaasaddu way isdaba marmartaa iyo erayadu mar haddii nabad loo jahaystay cidii markaa dagaalkan ama faa'iido ugu jirtay ama doonaysay in dagaalku uu daba dheeraado oo siyaasad iyo political game ka rabtay oo laga sii jeedo oo dagaalku asalba markuu meel dagaal ka dhaco
dadna faa'iida ugu jirta dadna way ku khasaaraan marka dadkii dagaalka ku faa'iidayay waxay doonayaan inay dagaalku uu sii socdo deetana ereyaal loo soo saari doonaa ama xabad quutayaal ama dagaal quutayaal ha la yidhaahda ama nabadiid waxbaa soo bixi doona kuwa markaa dowladda laga rabaa inay u jawaabto tan Eritrean hadday sii socoto waxaan filayaa kolley waa hawl Ethiopia u taalla Ethiopia inay caalamka u bandhigi doonto bay ila tahay hadduu ilaahay yidhaah waa tahay kaasina wuxuu ahaa Siraaji Aadan oo khadka taleefanka wax kaga weydiinay xaaladihii ugu dambeeyay dalka Ethiopia shirka Addis Ababa ka socdo duqeymaha loo geystay qaybo kamid ah gobolka Tigreega saraakiisha ugu sarreeyay TPLF iyo dhinaca dowladda federaalka Ethiopia oo khadka taleefanka ku wada hadlay iyo dhinaca kale iyo sidoo kale carqaladaynta dowladda Eritrea ay ku wada heshiiskani daawadayaal waxaan si maalinle idinku soo gudbin doonaa xogtii ugu dambeysay ee dalka Ethiopia waxa ka soo baxay dhinaca TPLF dhinaca dowladda federaalka Ethiopia dhaqdhaqaaqa dowladda Eritrea iyo sidoo kale qowmiyadda Amxaarada ee taliyadan kulmi doona barnaamijka lamidana waxaan kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.